marka koowaad waa maxay cudurka dhiigkarka sida qof walba ogsoon yahay jirkeenu wuxuu leeyahay xeero aad u fara badan oo jirka dhan ku faafsan oo dhiigga maro marka wadnaha wuxuu u baahan yahay cadaadis si uu u gaarsiiyo jirka maskaxda ilaa lugaha sidaas darteed haddii uu bato cadaadiska wadnaha oo dhiigga ku tuurayo waxay sababaysaa inuu dhaawac gaarsiiyo xididada taas oo sababayso inuu jirka dhan oo maskaxda ilaa indhaha ilaa kelyaha ilaa wadnaha xitaa dhaawac u gaarsiiyo cadaadiska dhiigga waa laba qayb markuu dhiigga wadnaha uu tuurayo oo iyo qayb markuu wadnaha dhiigga soo galayo maxaa u dhahnay cudurka dhiigkarku waa cudur aamusan ama la dareemaynin sababtoo ah cudurka dhiigkarka saa horey usoo sharaxnay waa culeys uu ku bato xididada dhiigga qaadayo sidaas darteed haddii turbo oo maalin walba biyo oo culeys loogu talagalay maahan culeys ka weyn lagu soo fasaxo tubada dhaawac yar wuu gaaraya laakiin hore ma laga dareemayo sidaas darteed hore ma laga dareemayo laakiin markii ay dilaacdo dhibaato weyn ayay sababaysaa sidaas oo kale xididada dhaawac wuu gaaraya laakiin ma aha dhaawac la dareemi karo sidaas darteed markay dilaacaan ama markaas ayay dhib zayd ay keenayaan dadku badanaa waxay ka filayaan dhiigkarka calaamado sida inuu qofka madax wareero oo ku yimaado inuu qofkii oo tawaqmo oo iyo sida aragga qofka oo daciifo kale calaamado sidaas ayay dadka ka sugayaan laakiin calaamadaas markay soo muuqanayaan waa mar oo cudurka dhiigkarka oo kor u kacay oo inkastoo mararka qaar asigoo dhib weyn keenin laakiin oo dhibaatooyin markuu keena calaamada imaanaya waaye inta ka horeyso calaamado lama dareemayo oo sidaas oo walaakiin cuntada dayweynle ee gacmo furan kusoo dhawaada fideogeena maanta intaas ayuu ka egyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu